السلام أصحابي دمانتين ميل بأجوكتان صوماليين ميل بأجوكتان أصحابي شرم بوي صومال أنت لغة صومالك وهذا الشمال بأجوان دمانتو الله والسلام عليا أصحابي يورتو حدين شيء حالي لايف انستغرام صوغلي لايف كاسنا ما لايف كي محلي هذا يعني ريل لايف من لايف كي لبعض عن صوغلو markii labaad oo aan leef soo galno waxa waaye waa markii labaad oo aan leef soo galo hadana labada marba aniga aan ay wanaagsaneen aniga aan wax fiican ahayd marka hadda codad badan waa jiraan oo codadkaas kale hadda aan maqasheen ama codadkan hadda aan maqli doontaan ahayn oo dhalinyaro badan wixii noo qorsan hadda cid og ma lahan waan soo afliyaadiyaa waan soo caaya anaga hadda iska heesno waxa waaye inta commentigaas caadi wanaag noogu soo qorto waxa ka badan inta anaga soo caayso waxay ka soo tageen commenti YouTube ka soo tag TikTok ka soo tag waxaan la isticmaalo programme oo dhan application ka soo tag WhatsApp keena dhaxmareysa WhatsApp ki dhaxdiisa hadal caay oo aflagaada ah lagu soo duubaya waa lagu soo caynaa dad asxaab badan oo aad waxba ka hadlayna ku soo caynayso aad waxba u dhimin hadda ani waxa jirtay soo argeysa daraa aan dhooto soo qaade cid aniga heestaas aan kala tastamalaan cid aan markaan sameeyay aan go'aan ka weydiistay malahan waxa waaye Hargeysa oo dhul Soomaaliyeed dhowr mar waxa la yiraahdaa fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhan oo soo heeseen aniga meel boo Soomaali degtay inaan u heeso waa waajib saaran maadaama aan fanaan Soomaaliyeed oo dhan u dhaxeeyahay okay fanaanka suku ani madaxweyne Soomaaliyeed ma ihi waxa la yiraahdaa Sheekh Mustafa Ismaaciil Haaruun ma ihi ma aragtay nin oo dhalinyaro ah 20 jir wixii ka dhacaan way iga dhacayaan aniga meel boo fanaan marka xagga la dhigo in 20 jir wixii ka dhacay iga dhacayo waxa waa dhalinyaro badan oo aflagaadiis way jiraan aniga heesta Hargeysa markaan sameeyay laba habeen ay ugu qaadatay hadaan murti maahan hadaan waxa waaye heesta waxaan ku dhex sheegay dhaxdeeda hooyga fanki inay ay murti waa soo dhahan ay soo aflagaadiyaan laakiin ayadoo aan murti ahayn intaas u jeedin bilaa xigmada ah aniga laba habeen waqti ay ka qaadatay ayadoo siyaasad ah tahay afaraha la galay Soomaaliya iyo Somaliland oo hoogaha siyaasadda soo iska xagga dawladda ajaafar ayadoo jirtaa ogahay hatta wax walba oo iimaan karo calanka Somaliland aniga Muqdisho maxaa la yiraahdaa gacanteeda ugu leh waa hees u qaaday waxa waaye waan soo dhafayay soo caay badan dhalinyaro ah waxa waaye maxaa la muhiimadu ma aha Hargeysa in la imaado kaliya waa bafanaaniin oo heesaan fanaaniinta oo dhan Hargeysa fanaaniinta Soomaaliyeed aan ka mid ahay waan u heesaan aniga Hargeysa okay hees hadeertay dhinacna fanika ahayd maxaa la yiraahdaa dhinacna amaanka oo wixii ay wahiyeen aan ku sheegay okay waxay ka soo tageen ayadoo taas ay sii jirto codad badan oo hadeertaan xitaa 500 ay gaarayaan dhalinyaro aniga soo aflagaaday oo codad badan ah ay jiraan haddana saas ay tahay waxa waa aniga waxay ila noqotay in Somaliland oo dhan ay soo wada aflagaadisay dhalinyarada oo dhan ay soo wada caysay Somaliland oo dhan ay soo aflagaadisay noqotay mideeda kala xalayto live Instagram ka soo galay xataa waxa ku aflagaaday reer Puntland ayagana ku jireen labadooda wax ma reeban aflagaado ma aragtay kulli anu marada tiimara ahayd inay ka dhacdaan waa ogahay anaaba inta ku fadhiya hadda inta ku fadhiya tiimara ahayd madaxa ay saarneed ee awalba Soomaali ayada saarta madaxa ay saartay oo madaxa ay saarneed inay ka dhacdo waa ogahay sidii ciyaalkan waa hadle nin weyn meesha laga rabayna maxaa la yiraahdaa maan tagin oo maan sameeynin saas ay tahay wax qalad laga galo ilaaha weyn وعفرها إلهي وغفور رحيم ونحن عفر سوديستو ومروا القعميس وفريهين ومديسة مركز هذا أنا بني آدم عن قلب كلي وأوقفي بني آدم كانوا أكو عن كل شيء عن كل حد شيء أنا صومالي وأنا وأسوق كامل ميل وبجوان وحيني شيء جاية وحول بقى أنا كسمي شخصي أهان تيجي كشر معهن تاجر ولا يبقى تاجران لكن محل هذا وحيد تاجران أفي محل هذا أنت وحول بقى سميه أو شر معهن أو سميه وواحد عن الكرانكي أو سميه وواحد عن الفكريدي أو سميه وواحد دار أو ضفره وواحد دار واحد ويجي يحبط فضل لكن وجودي يعني كذا اللي يرأهان أنت واحد خبض الآن أنا الجو لها وذلك أما أنا واحد خبن هذا أنا واحد برنا واحد برشاني سن تهريب يفرنتاي واحد يفرنتاي وضل يفرنا وحيد أنا محلي هذا فنكاس وأنا إسكو أرك أنا وربي تاس أنا سمين كرو واحد سمين يعني فلانين واحد سمين كرو أنا تاس إسكو أرك هرت الله في كل بعد أصوات قال وكي كورين فيسبوك أصوات قال أصيغنا أن بدنا كوف لقاديني كان الله في كل بعد ويحيوها وحي قد عنا Soomaaliya oo dhan way ogtahay
dad badanna inay ka wada gubanayaan waa ogahay de waxaan ku hadlay aniga waa ka guban lahaa laakiin waxaan dalbanayaa oo aan weydiisanayaa oo mar labaad mar saddexaad mar afraad aan weydiisanayaa Soomaali weyn meel walba ay joogto iyo Somaliland iyo maxaa la yiraahdaa Puntland inta aan u gafay waxa la live-kaas aan soo galay wixii iga dhacay oo ciyaalnimada hal iska ka afiya hadii macquul tahay laaligelin baan ka bixinayaa mideeda kaleeto waxaan rajeynayaa in dib dambe waxaan u dhaceen mar dambena aysan dhaceen qalad noocaas oo kaleeto aniga qalad waan galay namayahow dhalinyaro ana waa 20 jir ah marka hore cimaamada idinka ay ugu tuurteen hadana cimaamada diin idinka la deegi karo kulli aniga ninkii qaladka gala waa kana sharban boy ahaan aniga waaye inuu hor fadhiyo haddaan idin leeyahay qofna iguma dhiirigelin qofna maxaa la yiraahdaa qaladkaas maxaa la yiraahdaa garab iguma siin qofna kama dambeeynin oo saasama iguma dhihin aniga iyo maxaa la yiraahdaa dulqaadkii inta oo ka eka xanaaqay iyo intaas oo uurkayga wixii ku jiray iyo sidii aan ma aragtay aan u hadlay waxaan laakiin ogahay oo mar walbana aan ku soo celaa idin sheegay waxa xalqa oo ku hadlo dhanaya qodob qalad ahaayeen hadal nin raga 20 jir intuu geedka boodo talaka boodaa la yiri maama hore Soomaaliya oo tirwaa aniga talanka boode meesha laga filayna kamaana soo bixin waxaan codsanayaa Soomaaliya meel bulshada khaasatan inta aan xalqooda u gafay dhammaantoodana nooca cafiyo raaligelin ma dalbanaya fanka Soomaaliyeed iyo wixii fanaaniin ah iyo wixii fan sheegto dhammaantoodana ayagana raaligelinta xaggooda ku jirta maadaama fanki aan la sheeganayo fanaan aan la ahay ayagana waa raaligelinaya meel walba ay joogaan fanaaniinta Soomaaliyeed qofka xal iga dhacay waayo qabiilan ka hadlay qabiilna waa wax ugu xun maxaa la yiraahdaa qofka imaamad oga dhacdo aniga nin qabiil hore loogu ogaamay nin qabiil ka hadli jira ma nin qabiilkiisa ku soo dhax karo ma Soomaaliyeed intaan ku soo leekaado qabiil intaan ku soo leekaanin waxa idin leeyahay Soomaaliyeed meel ka joogtaan qaladkii haleega afiyo qaladkeena waa akhirtay waxa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh cid aan wax u qeyb ma jirto